dowladda Soomaaliya waxay sheegtay 2015 heshiiska caalamiga ah la yiraahdo xuquuqda carruurta adduunka taas waxay ijbaaraysaa dowladaha saxiixay oo dal in askaraynta carruurta aan la askarayn karin haddii ka yaraysto taana oo ka ambaqaadayna dhammaan sektarada Soomaaliya waa tagnay waa ka howlgalay wacyigelin baan sameynay markii hore aan ugu dhibadato haddii rabto waxa la yiraahdo maaragtay laakiin maanta waxaan oran karaa 2018 bishii July waxaan ku dhawaaqi karnaa dowladda Soomaaliya inay joojisay oo aysan jirin askari la qoro oo ka yar 18 official baan u oran karaa haddii uu jiro hal iyo labana waa mid meel u nooga dhuntay laakiin officially dowladda Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidanka maamul goboleedyada dhammaan waxa ka howlgalay dhaqanka inaan la askarayn karin ilmo 18